أجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا كاستقيمه ووحا هجاجين كره وفرسمته يقانيه وحو يقانه والخاصة تقول بودي لكن dadka indheer garadka iyagu waxay yiraahdaan buu yiri qiimatu kullu muri'in ma yatlubu qof kasta qiimihiisu waa hankiisa iyo halka uu hiigsanayo wuxuu doonayo yani caamadu waxay yiraahdaan buu leeyahay qof kasta waa intuu garanayo laakiin khaasada waxay tiraahdaa buu leeyahay qof kasta waa intuu ku haminayo intuu ku warwarayo u raadinayo أبو طيب المتنبي شاعر كعربية معروف كها المتنبي دي وحابي اسكو داينو النبي شيكتا وحوغا ابو كتبرسيي marka saal la xidhay aakhirkii buu ka toobad garay oo ka soo noqday mutanabi baa wuxuu leeyahay gabiyadiisa diiwaankiisa qayb dhan baa ku jirto aad u tiro badan oo kaga warramaya hamiga sare iyo hanka sare iyo qofku meesho walam ara fi uyub an-nas ayban kanaqs al-qadirin ala tamam bulay ma narak bulay ceebta bini aadam ceeb ka liidata qof waxa wado hakrado meel hoose jooga qof waxa woodi kara oo haddana aan samaynaynin ceeb ka liidata anigu ma arag buu leeyahay ayuha alahibba himadu markaa waxay dhahdaan waa laba qaybood qayb waa wahbi yani waa loo dhashaa qaybna waa kasabi bay dhahdaan والله اسكو تربيه والله كبعيه لكن قف كستو ابن ادم نوع من الهمه وكدشه ولذلك با waxay ku tilmaamaan bini aadamku wuxuu ku kala gadisay bay yiraahdaan laba shay matalibahum wa hadafahum waxa ay doonayaan ama hadafkoodu wuxuu yahay targetka goolka yoolka meesha uu raadaynayo halka uu ku socdo bini aadamku ku kala gadisay nin janno doonayo raadcadeed ku jira oo booska ugu yar uu yahay dunidan tabanlaabkeed iyo nin qurus yar dunidana qayb kamida ku mashquul waa kala nooc wala bahamo cirkiya dhulku inta isu jira waayo ninna wuxuu raadcadeed yahay adduunkan tabanlaabkeed baa ninka uu boos yar leeyahay marka adduunkan tabanlaabkeed wax ka ballaaran buu habeen iyo maalin ba raadcadii ku jira ninna wuxuu raadcadii ku jira maxay in yaro adduunka kamida madaxnimo tuulo yaro inteenan aynu deganoo kale inuu maamulo iyo wax la mid ah waxoogaa lacaga reer hebel inuu u dhaqaalo bato inahaasuu raadacadiisu tahay waa laba hamo aad u kala fog idan bini aadamku mataalibta iyo ahdaafta waa ku kala gadisayin waxay kaloo ku kala gadisayin bay yidhaahdaan alhimam almuusila ilaa hada almataalib walahdaaf hanka gaadhsiinaya meesha oo mid baahan iska haya laakiin hankiisu waa riyo baba dhaqaaqo waxba ma qabto idan kaasi daydreaming buu ku jira waa qoladana yidhaahdaan socodku ku riyooda dadka badhna markay seexdaan oo quray riyoodaan dadka badhna iyagoo soconaya riyoonayaan soo jeeda yani ninkana waa riya wixiisu waxay yidhaahdaan markaa qofka ku haminaya mataalibta sare عرب ahaan af ahaan ka sheegaya laakiin ficilkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisu aanu u muuqanin caynkaasi waa mutamanni bay yiraahdeen maghruura laysa biamaniyikum wala amani ahli alkitab man ya'mal su'an yujza bihi ba ilahi ilaahi subhanahu wa ta'ala amanidiina waxa iskaga yidi doolonaysaan ma aha ba ilaahi ilaahi iyo ahlu kitaabku iyaguna waxay ku diidoonayaan man ya'mal su'an yujza bihi cidii xuma samaysa waa lagu abaal marinaya idan qofka isagu hammi baan leeyahay laakiin ficilanu ka muuqanini kaasi waa mutamanni ama waa maghruur waa mid la kadiyay matalib ad-dunya ana tamanni qura laguma gaaro ee ad-dunya ghallaba bay yiraahdeen waa rag iska dhicin iyo loolan ayaa lagu gaadhaa oo loolanka ay ugu horeyso naftaada aad la loolanto wax ku xidhxidha naftaada ugu adag in allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ma bil anfus hadanat jabinin
waad xidhxidhantay waataynu hore u tilmaamnay inaynu silsilada nafta ka jebinayno macnaheedu haddaanad xadhgan koowaad jebin ficilku maba socdo walidaalik addunya ghallaaba bay yidhaahdaan waxaa lagu gaadhaa legdan idan dadka waxaa ka mida qaar kow kuwaasi waa guruubna iyaga marka horeba hamigoodaa liita oo safaasif alumuur iyo wixii liita ayay hamigoodu yihi oo qaybta tan han wuu leeyahe hadafkaa ka xun maala waa nin han leh laakiin hadafkiisa in la tunto iyo in la heeso iyo in la boodboodo iyo in dunida la marmaray intan baa hadafkaa liita laakiin shaydaannimadaa wuu ku xeel dheeriyey xog buu u jiidhaya waa leeb xagga kale uga dusaya laakiin kaa haddii hadafka loo saxo wuxuu noqonayaa kuwii nebigu lahaa maxay annaasu macaadin khiyaaruhum fi ljaahiliya khiyaaruhum fi lislaam idaa faqhu waa duul hadday wax fahmaan toosnaan kara dadka badhna hamiba male sida xooluhu isaga noolyihi wixii la cuni lahaa iyo wixii la cabbi lahaa waagu saakana beriyeena dhaqaajiya weeyaan adceeddan soo baxeedu iska sugayaa wax kale oo uu ku hamileeyey ma jiro waxay idhahdaan kuwaasi waa kuwa hadday joogaanna wax lama weydiiyo hadday maqan yihiinna lama tabo meesha hadday joogaanna cidi wax ma weydiiso hadday maqan yihiinna lama tabo erayadaasi afarta kooxood aynu u qaybinay bitacbiir ibn اlqayim haddaynu soo qaadanay wuxuu leeyahay bini aadamku wuxuu ku kala gedisayay buu yidhi laba shay macrifatu اlxaqi min albaaطil oo ahdaafta iyo mataalibta ah iyo iithaaru اlxaqi cala albaaطil oo hamigii kugu bixinayaya xaqa iyo baaطil